بسم الله الرحمن الرحيم muuqaalkan oo daba socda kii ka horreeyey ee ka hadlayay sannadkii 536 oo ahaa sannad dunida soo mara kii ugu xumaa sida culimmada taariikhda ay isku raacsan yihiin ayaa waxaan eegi doonaa dhanka saamayntiisa iyo wax kasta oo dhaca in uu yahay mid alle qorshe ka leeyahay iyo sida aynaan u garan karin ujeeddada alle dhacdooyin aan qaar jeclaysanin oo xanuun badan oo marka ayna soo maraan aan ku tilmaanno masiibooyin waxay doonaanba ha ahaadaane laakiinse allah wuxuu koonka ku xukumaa cilmi wax kasta oo dhacaana waxay ku qotamaan xigmaddiisa awooddiisana ma hareer marsana balse aadanuhu ma garto ujeeddada waxayna ku baraarugaan xigmaddaas goor dambe taasoo gaarta mararka qaarkood qarniyo kadib haddaan dib ugu noqono qarnigii 6aad bartamihiisii wuxuu ahaa waqti ay kacsanaan weyni ka jirto dunida gaar ahaan dhulalka dhaca hareeraha badda cad iyo bariga dhexe masiibooyin dabiici ah iyo kuwo siyaasadeed oo u muuqday kuwa aan xiriir lahayn ayaa abuuray silsilad dhacdooyin ah oo si weyn u beddelay nidaamkii caalamiga ahaa mid ka mid ah kuwa ugu halista badnaa wuxuu ahaa qaraxii fulkaanihii weynaa ee dhacay sannadkii 536 kaasoo sidaan muuqaalkii hore ku soo sheegnay qariyey qorraxda dhaliyeyna isbeddel weyn oo ku dhaca dhanka cimilada iyo tabardarro ku dhacday boqortooyadii bizantiin iyo sasaniyanka oo ahayd bershiya ama faris xaaladii ka abuurantay masiibadii fulkaanaha waxay horseeday duruufo u suurtogeliyey faafidii cudurkii halista ahaa ee babonic blake ama justinian blake loo yiqiin sannadkii 541 ilaa iyo 549 kaasoo ahaa masiibo caalami ah oo ay ku le'deen dad badan oo ku noolaa dunida taasoo nuglaysay labada boqortooyo ee byzantiin iyo sasaniyanka waxayna ku mashquuleen dib uga soo kabashadii masiibooyinkaas taasoo abuurtay xaalad sahashay koritaankii iyo fiditaankii degdega ahaa ee islaamka qarnigii 7aad muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa sidaan isugu xiri lahayn silsilada dhacdooyinka masiibooyinka dabiiciga ah cudurka iyo soo ifbixii awoodda cusub ee ka dhalatay jasiiradda carab sannadkii 536 qaraxii fulkaanaha wuxuu sababay in daruuro iyo qaac madow uu qariyo iftiinka qorraxda taasoo iyadana keentay inay baaqdaan dalagyadii beeraha qorrax li'ida iyo qabowga awgiis waxaana dilaacay macluul iyo cunto yari xoog leh waxaana aad looga dareemay labada boqortooyo ee byzantiin iyo sasaniid oo ahayd boqortooyadii bershiya waxaana abuurmay kacdoonno looga soo horjeedo kuwaasoo masiibada sii weyneeyey qaraxa fulkaanaha kacdoonkii shacabka iyo macluusha waxay abuureen xaalad ku habboon in ay cudurro faafaan cudurka lagu hoobtay ee babonic ama justinian blake waxa uu bilowday sannadkii 541 waxaana sababay bacteria yersinia pestis oo ahayd isla bakteriyadii sababtay gadaalihii cudurkii dhimashadii madoobeyd ama the black death ee dilaacay qarnigii 14aad bakteriyadan marka hore waxay asiibtaa cayayaanka loo yaqaano boodada ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo flea taasoo ku nool dhiigga xayawaanada yaryar sida dooliga ama jiirka bakteriyada waxay saamaysaa dhiska dheefshiidka iyo kan qashinsaarka ee boodada taasoo keenta inay dib u qaniinto dooliga ama jiirka dibna ugu celiso bakteriyada markay tiro badan oo jiirka ah ama dooliga cudurka u dhintaana waxay qaniintaa dadka kuna ridaa cudurka dilaaga ah dooliga aafaysan wuxuu isaga gudbayay dhulalkii ay boqortooyadii byzantiin xukumaysay iyo tii bershiya alexandria oo ku taal masar waxay ahayd dekad weyn iyo kaydka miraha sida galleyda jiirkana wuxuu ku faafayey maraakiibta ganacsiga qaada sidaasuu cudurku ugu faafay magaalooyinka oo ay dad badan degganaayeen nadaafadooduna ay aad u liidatay calaamadaha cudurka waxaa ka mid ahaa qandho ama xumad daran dhaxan iyadoo ay soo bararaan qanjirada meel kasta oo ay jirka uga yaallaan haddaan si degdeg ah loo daaweyninna dadka wuu asiibo badankood way u dhintaan aafadaa waxay ahayd mid aad u culus oo qiyaas ahaan waxaa ku hoobtay in ka badan kala barowbar dadkii degganaa dhulalka gaar ahaan constantinople oo ahayd caasimadii boqortooyada byzantiin jug xoog leh ayaa soo gaartay 10,000 ayuuna ku dilay ayaamihii ugu horreeyey cudurka wuxuu curyaamiyey dhaqaalaha beeraha iyo ganacsiga waxaana naafoobay cududii militariga ee labada boqortooyo byzantiin iyo sasaniid waxaana dhacay jahawareer siyaasadeed oo uu sababay khasaarihii dhimashada ee farabeelka ahaa waxaana adkaatay maamulkii iyo faraku-hayntii dalka hoosudhicii heerkulka ee uu fulkaanaha sababay wuxuu abuuray jawi ku habboon in cudurka babonic blake uu si aadah u faafo cudurka ma ahayn mid laga gudbay kadib sannadkii 541 ee wuu sii nagaaday wuxuu noqday mid soo noqnoqdaa
150 sano ee xigay oo marba 10 ilaa 20 sanaba mar dilaacayay, taas oo ahayd marka jiilka hore ee cudurka guriga ka noqday ama imiyuunka ka noqday uu ka daba yimaado jiil cusub oo aan guri ka ahayn cudurka in uu soo laba kacleeyo. boqorkii Byzantine waxa uu guluf weyn oo xoog leh u galay siduu u midayn lahaa bariga iyo galbeedka boqortooyada Roma. waxaa sarriyadaas ka dhigay huf iyo halaan jirin cudurka Bubonic. dhanka kalena boqortooyadii Sasaniid waxaa sidoo kale kala dhantaalay kacdoonno gudaha ah iyo burbur dhaqaale oo xoog leh. labada boqortooyo waxay ku hawshoodeen dagaallo muddo dheer socday oo laysku mari waayey, taasoo keentay in labadaba ay itaal darreeyaan. dhul ballaaran oo ka tirsan labada boqortooyona uu noqdo mid baylah ah. marka aan u imaano jasiiradda carabta, gaar ahaan gobolka Xijaaz oo ay ku yaalaan magaalooyin muhiim ah sida Maka iyo Madiina, inta badan way ka badbaadeen cudurka, waxaana taa u sabab ahaa cimilada qallafsan ee lamadegaanka iyo ka fogaanshaha dhulka uu halakeeyey cudurka ee labada boqortooyo. waa run in ay Xijaas ahayd meel loo soo xajiyo, laakiinse waxaa u soo xajin jiray waxay ahaayeen carabta oo keliya. markaa waxay ahayd juqraafi ahaan meel ka go'an saldhigyadii ganacsiga ee dunida sida Constantinople, Alexandria iyo magaalooyinkii Persia. waxaana Xijaas wakhtigaa loo aqoonsaday meel aan wax horumar ah ka jirin. arrinta kale ee caawisay Xijaas kana badbaadisay cudurka waxay ahayd deegaan ahaan. Xijaas ma aha meel dadku hal meel wada degan yihiin, waxayna u badan yihiin reer guuraa. xaaladda aan soo xusnay ayaa Xijaas ka dhigtay mid aan ku daciifin cudurka ku habsaday boqortooyooyinkii Byzantine iyo Faris. taasna waxay ka dhigtay in ay awood noqoto qarnigii kaa xigay oo ahaa qarnigii 7, taasoo qarankii islaamka ahaa ee ka dhashay Xijaas uu degdeg ugu fiday dhulalkii labada boqortooyo. nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ha ahaatee markuu xijaabtay sanadkii 632 khulafadii ka dambeysay waxay u dhaqaaqeen hirgelinta faafidda islaamka, waxayna bilaabeen olole militari oo ku aadan dhulalkii boqortooyadii Byzantine iyo tii Faris oo bilaabay in ay la cadaaweytamaan islaamka. ololaha wuxuu ahaa mid degdeg ah, taasoo difaacii labada boqortooye uu ku guul daraystay is-hortaaggii islaamka. muddo 10 sano ah dhexdoodna dhulkii ay labada boqortooye xukumayeen wuxuu gacanta u galay khilaafadii muslimiinta, waxaana halkaa ka bilowday isbeddel ku dhacay habkii juqraafi siyaasadeed ee gobolka. ugu dambayntii qaraxii fulkaanaha ee 536 ee abuuray isbeddelka ku dhacay cimilada, kaasoo horseeday macaluul daciifiyeyna Roma iyo Faris, dabadana ku watay cudurkii Bubonic Plague iyo dagaallo la isku mari waayey oo dad iyo dhaqaalaba lagu hoobtay oo dhex maray labada boqortooyo, ayaa ka dhigay kuwa taag daran. islaamka oo soo baxay qarnigii 7 wuxuu la kowsaday wax ahaan jiray laba boqortooyo oo waaweyn, haddase daciifay. qabsashada islaamka ee dhulalka labada boqortooyo wuxuu markhaati cad ka yahay sida uu allaah u qorsheeyey dhacdooyinka. haddaba isku xirka dhacdooyinka waxay noo caddaysay sida habsamida ah ee allaah isugu dubariday iyo in wax kasta ay ku dhacaan iraadadiisa. intaana waxaan kusoo gabagabaynaynaa sanadkii 536 iyo xiriirka uu la lahaa soo ifbixii islaamka.